su-aasha kale aan ku weydiinayo magaalada Hobyo sababta u timid ama waxa haatan Hobyo adigu sugan tahay inaad macluumaad iyo faahfaahin ka siiso dad badan oo ku daawanaya oo dibadaha iyo dalka ku sugan oo Soomaaliya. Bismillahir Rahmanir Rahiim. waxay la tahay waxa haatan Hobyo ka socda waa la og yahay adduunka dhan waa la socdaa Soomaaliduna waa la socotaa waxa ka socda waxa weeye in beesha Habargidar oo kamid ah beelaha waaweyn ee Soomaaliyeed taariikhdana ku lahayd halgankii gobonnadoonka iyo dawlad wanaagga taariikh weyn ku lahayd oo muddooyinkan dambe si uu tafaraar u dhex galay ayaa la doonayaa in si fiican loo mideeyo la heshiisiyo waxay isku hayaan yar yar oo dhan ay iska cafiyaan waxna ka tanasulaan dabadeedna ay midowdo Habargidar markaasna ay iyadoo wada socota ay galmudug wada dhisato dawlad goboleedkaas galmudug la yiraahdo ay wada dhisato Dhuusamareeb la wada aado insha Allah markii taas soo gabagabowdana in Soomaali weyn maaragtay wax lala qabsado waliba qoonka dariska ah oo labada dhinac naga xiga oo ah Hirshabeelle iyo Puntland labadaba waxaan loo u wadnaa walaalnimo iyo nabadgelyo iyo iskaashi iyo daris wanaag iyo magaranaysa ehelnimo ayaanu u wadnaa marka waa maqlay meelaha qola shaki gelinaya dhahaya Habargidar haday heshiiso qolay ku duulaysaa xagee duulaan ku tahay ma jirto warkaas waagii la duuli jiray Habargidar ay duulaan qaadi jirtay aniga ima aadna arki jiray ma garanaysaa waa ka soo horjeeday dagaal iyo waxyaalahaas wax lagu xalliyo waxa kale oo ayana jirta rag hadda hogaaminaya oo Cabdi Faarax Jaamac oo gudoomiye u yahay Dr. Diini Maxamed Diinina oo u yahay gudoomiye ku xigeen hadda labadaas nin Habargidar ay hogaaminayaan marna dagaal oogayaal ma ahayn mana noqonayso Habargidar wax weerarta nabadgelyo inay dadku kula noolaato marka waxaan u joogno waxa weeye noocaas Habargidar noocaas ah inay ka soo baxdo dhawaan waxaa lagu soo bandhigay maasha shirka Hobyo isfaham ay gaareen ilaa 5 wakiilo oo dhinaca dhaqanka ee beelaha Habargidar isku yiraahdo ee ku shiray Hobyo ka kooban waxaana la soconaa tafaraaro beelahaas dhexdooda ah oo laga dareemayo magaalooyinka sida gaarka ay u degaan Dhuusamareeb Cadaado Gaalkacyo arintaas ma isleedahay shirkan waa loogu gudbi karaa oo qorshaha hadda inta aad joogtaan waa uga meel dhalin kartaa saasaan rajaynayaa insha Allah kulligan saasaan rajaynaynaa waana noo muuqataa ma garanaysaa waxaana noo himiladaas inay tahay mid la gaari karo ayaa noo muuqata wax badanna waa laga gaaray waxa harayna waa la daba dhigayaa insha Allah aad iyo aad baan ugu kalsoonaa waxaa jira shaki ay muujinayso dawladda federaalka walow aysan weli ka hadlin oo dadka qaar ay tilmaamaan kaas oo ah in shirkan Hobyo uu ka soo horjeedo gobasha dawladdu ay ka fiirso magaalada Dhuusamareeb arrintan maxaad ka leedahay generaal galmudug inay dhisanto shirkaanu diyaarba u yahay dawlad gobolka ee galmudug wixii awal lagu heshiiyey sidaan maqlaynay oo afgarad ahaa oo u dhaxeeyay ahlul sunna iyo maaragtay dawladda centralka haddana waa socon la'yihiin sidaan maqlayno hadda waxaan maqlayay maanta inuu soo saaray Sheekh Maxamed Shaakir
oo ah madaxa xukuumadda iyo ama wasiirka koowaad ee galmudug inuu maaragtay ku dhawaaqay in matabaan ka soo bilow ilaa iyo mareer gur inaan dowladu ka talin ee iyagu ka taliyaan magaranaysaa wixii dadkii muraad kale inuu ayaga kala xaajoodo dowlad uusan u baahnayn inuu mar dambe dib ugu noqdo arrimahaas markaa soo wax xagal daacinaya galmudug maaha shirkan muxuu ka tari karaa waa ka tari karaahoo maaragtay awalba ayaan wax runa isu sheegin labadii qolo heshiinaysa laakiin annagu runtaan ka hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa maaragtay galmudug oo xoog leh oo tabar leh oo taya leh inay dhisanto annagoo wax maaragtay shaqsi ah ayaan nagu jirin oo maaragtay halgan shakhsiyeed ama qof wax doonaya ama madaxweyne doonaya ama isla berri aad soo noqoto ama saadama aad soo noqoto ama mid ku dheggan meel yar oo haysto waxaas annaga naguma jiraan danta dalka iyo dadkan ka shaqaynaynaa haddii alla idmo wargidoo midowda halkaas ku dhisata dowlad goboleedka galmudugna waxay dan u tahay soomaaliya oo dhan waxaan rabnaa inaan soomaaliya oo dhan xiriirino waqooyi ilaa koonfur bare ilaa galbeed inaan xiriir waliba inaan soomaali weyn u dhacnaan rabnaa u dhacno oon wixii tabartayada taagtayadaba inaan soomaali weyn xiriir la yeelano waliba dhinaca galbeedka naga xiga inaan aad iyo aad u soo dhoweynaan doonaynaa insha allah hadalkaa haddii aan ka tixraaco oo wadahadaladii dowladda federaalka iyo ahlusunna in wax dhab ah oo ay isla meel dhigeen aysan jirin qorshaha shirku ma yahay inuu xiriir la sameeyo ahlusunna waljamaaca haddii dowladdu qancin weysay idinku aad ku qancisaan in galmudug aysan caqabad ku noqon amaba ay himilooyinkan aad tilmaamayso wax ka higsadaan annaga himiladeedu waxay markaan halkaan dhammayno oo midnimada la saxeexo oo wax walba lagu heshiiyo inaan dhowsamareeb tagnaa xarunta galmudug inaan tagno dhammaanteen waa la si kala horeyn karaa oo maaragtay wax yaroo abaabul ah ayaa loo baahan yahay oo maaragtay dadweynaha isugu imaanaya maaragtay inay qaabkay u degi lahaayeen iyo qaabkay u noolaan lahaayeen iyo waxaasoo dhan in laga sii shaqeeyo marka kanu noo dhammaado waxaa loo socdaa dhowsamareeb ayaa loo socdaa xarunta galmudug laakiin waa in cayrku sii horeeyaahoo maaragtay guryihii iyo meelihii la degi lahaa iyo garanaysaa xoolihii iyo dhaqaalihii iyo wixii inuu arooriyo markii uu isla helay waxaasoo dhanna uu u yeero qolo walbana diyaar waa soo boodaysaa waa lasoo imaanayaa kalkacyaa laga imaanayaa cadaadaa laga imaanayaa xamar baa laga imaanaya meel kastaa laga imaanaya waxaad ka mid tahay saraakiishii xoogga dalka soomaaliyeed waxaad usoo joogtay ciidanka soomaaliyeed oo xoog leh oo dalka guud ahaan amnigiisa hanta isla markaana ka ilaaliya xadgudubyada ama galaangalka dalalka shisheeye sida kuwa deriska hadda ciidamada soomaaliya burbur xoog leh ka muuqda dalka maleeshiya kala duwanaa ka jira ciidamo aan nidaamsanayna ka jira dowladda iminka waxaa aad loo hadalhayaa dadaallo ay bilowday oo dib u habeyn ah oo tiro koob ah iyo diiwaangelin ah waxaa uu soo gaaray galmudug sidaan la soconay ahlusunna waljamaaca markii lala hadlayay waxaa qayb ka ahayd in ciidamadooda la qarameeyo diiwaanka ciidamadana lagu daro arrimahaas maxaa kuu muuqda ma waxyaabo qaladaada oo kaaga muuqdaa jira mise wanaag ayaad u aragtaa adigu maya isu imaanshahu kolleyba waa horumar laakiin nimankan oo madaxda ahi oo ah madaxda sare qaranka ciidan ma dhisi yaqaaniin mana dadkii dhisi karayna oo ay ogola ayaguna ma garanayaan marka way calaanjiyeen meel xun bay geeyeen reer muskood marka inta kuwaasi joogaan oo malaynaya in ciidanku kor u soo kacayo calaanjiyeen maxaa ula jeedaa waxbay isku labeen waxaan meesha
generaal bay waxay yidhahdeen kabtankaas ka amar qaado nin generaala ayay leeyihiin kabtankaas ka amar qaado taliyihii xoogga ayaa warqad qoray oo boqol maxaan dheelaa dollar ayuu daawo iyo kuwa ugu qoray waxaa diiday mid kabtanoo maaqan logistikada iyo xoojeeye wuxuu yidhi orod gabar meel halkaasa fadhida madaxtooyada orod gabadhaas ka soo saxiixuu yidhi oo la igu yidhi gabadhu waa kenyaan marka muddaaya gobolada dhex ku sugan tahay ra-iisul wasaaraha yimid arrimahan inta dib u habeynta lagu jiro wax tala lagaa soo weydiin ma jiraan maya tala ma rabaan kuwaas tala ma rabaan talana ma hayaan adiga isku dayday maadaama madaxweynaha isku in deegaanka yimaadaan in aad wax tala ku darsato maya inta xasan horaan uga soo quusta xasan iyo biriqdiisa midka madaxweynahana waan arkay 3 jeer aan arkay wax ka soo baxay meel warqadan u qoray oo u dhiibay ciidamada sida loo habeyn lahaa meel kama uusan soo qaadin meel isaga tuuray qaskaasoo galay ma laga yaabaa dowladda aad ka tirsanayd maadaama afgembi ay talada ku qabsatay cabsi in ay jirto oo saraakiishii hore haddii ciidanka lagu aamino in ay talada ka baxayso rayidka farwad waxa weeye haddaad tiraahdo waxaas amay dhacaan oo wax walba u cuuriyo aaminsan waxaas amay dhacaan wax kuu soconayaba ma leh midda kale anigu sidaydaba maaragtay inqilaab waa ka soo horjeedaa sidaydaba maxamed siyaadan ka diiday markii uu maaragtay bahasha waday waa ka diiday ay soo bandhigeen waa ka diiday wax kalena ma ahayn ma ahan inaan kuwii haatan la dhacsanaa waxay wadeen rayidka ahaa laakiin waxaan diidanaa wax oon dhisan in haraati lagu dhifto marka dee uu yeelay uu ku dhiftay haddana markii u dambayso say ku dhammaatay siduu noqday bahal uu soo baxay bahal hadda aan la hadlayso waa meediyaha haddii qoraallo aad samaysan lagaa diiday talooyinkaada aan meel laga soo qaadin waxaa ku dhegaysanaya mujtamaca soomaaliyeed oo meel kasta ku sugan oo laga yaabo madaxda inay qayb ka yihiin maxaa tala ah oo lagaa reebaa generaal galaal oo dhismaha ciidanka ku aad hadda dhismaha ciidanka oo qorshe kaamil ah aan u dhiibay ninkan qorshe kaamil ah ayaan u dhiibay meel isaga tuuray xataa igalama munaqash mar buu yidhi warqad qoraalahoo fiican baan arkay ood soo qortay aad iyo aad u fiican aniga say iigu timin war ma aqaana say kuugu timin hadday kula fiican tahay ku dhaqan baan idhi dib dambana wuu diiday xaggu isaga maalin waxaad u sheegay oo ciidanka dhismahooda oo aad kula talinay maadaama iyaga ay dan u tahay in ciidan ay yeeshaan taladu waa midaas aan siiyey oo haatan waxaan uu ku sheegay isxilqaan qorshadaan aanu dhiban isxilqaan u qaato oo saas ciidamada yeela waxba kama ayan soo canaasa caddaan isqilaa xataa xagga nabadgelyada gobolka banaadir iyo waxaasaan uga sheegay ha sheegi waxaas waa ka dhegala'yihiin talakeenna male tala raacna male nimanku waa tahay magaalada hobi aan ku sugannahay waxaa madaxweynuhu ka dhex dhigay in dekeda loo dhisaayo wax saansaan haddama muuqdaan maxaa tale iyo tusaale aad bixinaysaa oo magaalada muhiimada ay leedahay magaaladan waa muhiim aad iyo aad ay muhiim u tahay dhaqaalo badan ay ku fadhidaa maaragtay oo istaraatiijig weeye marka muhiimada ay leedahay alla ma tusin soomaalida annagu waa ognahay marka 3 shay oo maaragtay meesha taalla waxaa weeye dib u heshiisiin habargedir midaynta habargedir iyo dekedoo la furo saddexdaas waa isdul saaran saasay u kala dambeeyaan dabcan haatan lacagaan hayno anagu laakiin adduun weyne waxaa doonaya inuu qarash maal gashado waddankaanoo faa'iidadana wax ka helo dadka deegaankuna ay maaragtay ku noolaadaan waa jiraan dad saasoo marka saasaan rajaynayaa in maaragtay dekedii u dhisanto khudbaddii shirka ka jeedis waxaa ku jirtay ciidda hobyo waxaa ka badan kheyraadkeeda maxaa ula jeeda inaan siduu u ballaaran yahay yacni run ma ahan in ciidda laga badan yahay laakiin waxaan rabay inaan muujiyo
dhaqaalaha ku jira baaxaddiisu intay la eg tahay saasaan ka waday oo ama gaas leh ama shidaal leh ama maaragta xataa waddan gobolkan galmudug waxaa macdan kale ka buuxda uraniyo ayaa ku jirta bir baa ku jirta garanaysa gobol istaraatiijig ana weeye gobol dhaqaalo badan ku fadhiyana weeye maanta galmudug waxaa ka soo jeeda dad wax ku ool ah oo adiga aad ugu horeyso oo dalka wax badan ka soo shaqeeyey haddana waxaad moodaa in ay dib u dhac ballaaran ka muuqdaan si walba ha loo eego ugu dambeyn annagoo ku dheeraannay soona gunaanadeena waxaan rabnaa taliya tusaalo oo aad u reebaysa bulshada galmudug wax looga qaban karo maamulkan dibna loogu leeli karo maamulada kalena uu wax la qaybsan karo ayna uga faa'iidaysan lahaayeen bulshada kale Soomaaliyeed taladaada iyaguna maamuladooda si ugu dabaqan waxa weeye inagu hadda waxaan rabnaa galmudug oo inay doorato dhisato dawlad ay iyadoo dooratay oo xulatay shakhsi loo keenay oo lama aragtay la hogaaminayo lacag lagu soo bixiyay oo baabuur bullet proof la soo siiyay waxaas shaqo ku weynaa anagu ayagu ay dooranayso waxaad qabtaa in dawladda uu ku madax bannaanaado oo ka go'aan weynaado sida maamuladii aan arkaynay oo arrimaha dibadda xitaa faragashanay maya waxay sida dastuurka yihiin dastuurku wuxuu qabo anigu inaan ka boodno ma jecli marka waxa weeye arrimaha dibadda dawladda leh laakiin waa inay kala tashataa dowlad goboleedyada annaguna intaasaan ku buuxnaa maaragta wax saayidka ama wadano shakhsiga wato maxaa ula jeedaa waxaad qabtaa in haddii nidaam dawladda taageersan meeshaan laga yegleelayo dadku ay iska diidaan maya hadde ninku horta ha tartamo annagu tartan baan rabnaa tartan aan annagu kontroolayno oo fiirinayno oo maaragtay aan nala ku qasbin ayaan doonaynaa marka hadduu soo baxo nin maaragtay wax ku ool ah oo markaas asagay u taalla marka asaga inuu xataa gobolka iyo dawladda isku xiro oo ka dhex shaqeeyo markaas maxaa u ballan qaadaysaa shakhsigaa soo baxa aad sheegaysa haddii gabowga dee waxa waaye ballanqaadka marka hore uu ku soo baxay oo habar gidan oo dhan baa ballan qaadaysa ama ma garanaysaa galmudug oo dhan 11 qabiil baa degani oo Soomaali weyna marka ballanqaadkaasoo haystaa taageeradaasoo ku yimid oo haystaa hadduu fiicnaadona waa la shaqaynaya هذا هو المصنع هي نبت كلية